ay saaxiib yeel soo dhawaada dabcan maalmahan waa ka yar mashquulnay oo ma dibin ciyaarihii inta badan oo mashquul yarana soo galay dhanka farsamada ah ciyaarihii World Cup Qatar 2022 wali xiisa ay leeyihiin dabcan sidaan dareemayo kooxo badan oo la filayay inay soo bixi karaan waa iska quleeleen sida Spain oo kale kooxo aan la filayn oo Afrikaan Morocco dabcan waa ay soo baxday dabcan Morocco waxay haysataa Janis hal Janis oo kamid ah 8 Janis oo koox walba ay haysato ama kooxaba 8 koox kala dhaxeeyo dabcan Morocco waxay ka soo baxday Spain oo ahayd koox aad u adag oo xitaa aan la saadaali karin balse sida ay u ciyaareen iyo waxa ay soo bandhigeen dabcan waxay ka dhigaysaa kooxda ugu horeyso Afrikaan oo campaign-ka It's Coming Home Africa keento koobka adduunka ama dal muslimaba keento inta loo yahay taariikhda kubadda cagta maadaama dal muslim oo koob weyn ama tooraf weyn dalkiisa u soo hoyay unas jirin inta taariikhdii kubadda cagta la daawanayay dabcan waxaan falanqeyn doonaa wax yar oo kamid ah kooxaha soo bixi kara 8 koox afarta koox ay u gudbi karto waxa loo yaqaan semi finalka maadaama quarter final ama quarter final la joogo dabcan Simba ayaa ila joogo inta badan ciyaaraha xiiseeya wax badan kala socdo Simba soo dhaw dabcan waxaan ku weydiinayaa dabcan waxaan ku bilaabaynaa Morocco iyo Portuguese Portuguese-ku dabcan xaqiiqatan inkastoo aysan jirin wax performance wanaagsan uu ku dhaamo Morocco ay ka rooneed ba oo ilaa hadda guul darro ay wadan kooxda Morocco dabcan Spain tuntay ma la isdhihi karaa waa ay soo bixi kartaa dabcan Morocco boqolkiiba 80 inay soo baxdo macquul waay oo maadaama ay Spain ka timid ma la dhihi karaa Portuguese way ka iman kartaa waayo hadii lacala Spain ay soo bixi lahayd oo Portuguese Spain isku aadi lahayn boqolkiiba 70 waxaa la saadaalinayaa in Spain soo bixi karto marka booskaas Morocco ma geli kartaa way geli kartaa dabcan qaab ciyaareedkeeda fiican oo aad u fiican waxaa laga yaabaa inay Portuguese ka tilaabsato koobka xataa inay hanato laga yaabaa dabcan okay way waxa kale oo hor yaalla ciyaar dabcan bariba dhacayso u dhaxaysa Argentina iyo Netherlands ma la dhihi karaa Argentina waa la reebi karaa mar walba macnaha fursad waxaa muuqato sida aan isleeyahay aniga in Messi uu ka hor hari karo Ronaldo oo mar walba Messi loo malaynayo inuu hari karo marka ma la dhihi karaa meeshaas waxba ma yaalaan in Argentina dabcan waa laga yaabaa waayo Netherlands waa ciyaartoy firfircoon ay haysataa daayir waliba Messi waa halka Argentina ay haysataa Messi ku dagaalamayso okay way waxaan ku weydiinayaa ciyaar kale oo aad u fiican ah jirto isla bariin ay dhacaysan filiyo Faransiiska iyo Ingiriiska u dhacayso dabcan ciyaarta aad ugu xiisaha badan oo la wada filay ay tahay waa ciyaarta ugu adag dabcan ciyaartan ma la isdhihi karaa Ingiriisku dabcan Faransiisku waa reebi karaan maadaama ilaa iyo 98 ilaa iyo hadda waa dabcan 22 sano kooxaha koobka qaaday koox oo semi final timid Brazil ayaa ka jirto 2006 timid Faransiisku ayaa soo labeeyay inta kale laakiin 98 Faransiiska qaaday 2002 waa hareen gurubyada ku hareen Talyaaniga Jarmalka Spanish ka wada aragna marka ma la dhihi karaa Ingiriisku fursadaas way u diidi karaan Faransiiska dabcan Faransiiska soo bixi karaa isleeyahay taas hadda raaligay ka okay saas leedahay oo Faransiiska awood badan isleedahay soo okay way waxaan ku weydiinayaa kulanka kale ee u dhaxayn kara Croatia Brazil taas waa iska cadda yaa soo bixi kara Brazil soo bixis Brazil saadalis way aad u mahadsantiin saaxiibada inta badan barnaamijyada noocan waa falanqeyn doonaa waxyaabihii soo kordhay newska oo akhbaaradka caalamka ku saabsan oo ka sheekeyn doonaa naga raalaada maamaha ka maqnayn aad iyo aad u mahadsantiin saaxiibada